iyo toddobaatan kana soo horjeedo dibindaabiyada iyo dhibaatada lagu hayo baarlamaanka Soomaaliyeed. Goobtu waa Villa Hargeysa oo ku celinaya waxaan ku soo galnay dagaal waa xafiiskeeni iyo meelihii loogu talagalay inuu dastuurka iyo qaranka Soomaaliyeed loogu shaqeeyo sareynta dastuurkan loogu shaqeeyo waxa ka shaqeynay dibindaabiyadaas waa golaha fulinta iyo qolo lagu sheegay guddoon ku xigeen laakiin aan xaqiiqa shaqo ka qaban doono insha Allah aan ka saari doono baarlamaanka qaybintiisa iyo dhibaatayntiisa ay mar walba maaragtay u taagan yihiin aan maaragtay shaqo maaragtay nidaamiyan ah aan ka qaban doono insha Allah aan gacanteena aan ku saarnay codkeena aan ku saarnay dibna aan uga qaadi doono mas'uuliyad darrada ay muujinayaan darteed iyo baarlamaanka ay qaybinayaan waxaan u soo galay kelmadaha u qaatay hadalka nuxurkiisii bareeska lagu sheegay war murtiidka lagu soo saaray xildhibaanadii kalena way kaabeen madaxweynaha uu dacweysan yahay waa sax waxaan ku raacsanahay xildhibaan xasan oo iga horreeyay dhaqdhaqaaqiisuna uu iska yaraan doonaa dabcan inta arrintan meel laga saaray waxaan rabaa inaan xoojiyo oo baaq u diro mas'uuli maxaa la yiraahdaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed saraakiil xigeenta dableyda qaranka Soomaaliyeed inaan baaq u diro ay joojiyaan awaamirta guracan ee loo dhiibay inay ka hor yimaadaan annagu waxaan u taaganahay saxitaankii baarlamaanka waxaan u taaganahay inaan difaacno ummadda waxaan u taaganahay inuu sharcigu sareeyo fadlan amar khaldan ha qaadanina amarkii khaldan amar sax haddii lagu siiyo ood noo sheegto waa fahmi karnaa waana kaa tegaynaa laakiin albaabkan ma geli kartid xafiiskan ma fariisan kartid halkan xildhibaan waa laga mamnuucay waxaasoo dhan waa ceeb iyo fadeexo qolada idinka sarraysay oo amarkaas idin siisayna way khaldan yihiin marka baaqayga waxaan ku celinayaa codsina iga ciidamada inay ogaadaan sarreynta sharciga in xildhibaan aynan korkiisa taaban karin in xildhibaan aynan amri karin in xildhibaan aynan qori ku soo taagi karin in xildhibaan meel ay u diidi karaan oo dalka ka reeban ayna jirin intaasaan rabaa inaan u sheego garabna ay nagu siiyaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan ku darsado wax yar warqadan war-saxaafadeedkan uu soo jeediyey xubnihii keenay eedaynta madaxweynaha sida loo sheegay madaxweynaha markii la eedeeyey kabacdi communitigiisa wuxuu u dhacayaa hoos sida loo sheegay dhaqdhaqaaqiisa waa yaraanaya awaamirtiisana waa yaraanaysaa sharciga sidoo qabo waxaan rabaa kaloo inaan ku daro hay-adaha maaliyadda iyo hay-adaha amniga maaliyadda dalka laga qaadayo ummadda iskale waxyaalaha oo ay ka soo bilowdeenna waxaa ka mid ahaa maaliyadda la luursaday oo guddiga maaliyadda baarlamaanka uu keenay ayaa soo kicisay waxyaalaha badan iyadoo qaldaad badan hor u jireen haddana waxaana u maqaalaa mase aan maqlaynaa in maaliyaddii si khaldan loo isticmaalayo oo weliba xildhibaanada la leeyahay intaasaa lagu siinaya ka noqo mooshinka waxaan soo jeedinaynaa hay-adaha maaliyadda waa laydugula xisaabtami doonaa dakhliga idin soo galay meeshaad ku bixiseen hadhow cid ay ka bixinaysa hebel ba ay amrin ma jiro waxaa miisaaniyaddaas ku astaysan wax ka baxsan ninkii bixiyo asagaa mas-uuliyaddiisa qaaday dadka aruuriyo dhaqaalaha ayagana sidii loogu talgal waa inuu xareeyaan kama fiicna idiin wiilashii laga soo qabtay dekadda nin kasta oo ku tagrifala waa la daba taagan yahay guddiga maaliyadda wuu dabageli doonaa haddii ilaaha yidhaah arrintaas waxaan rabaa inaan uga digo shaqaalaha rayidka iyo mas-uuliyiinta maaliyadda qaabilsan inay arrintaas ka digtoonaadaan taas waa middaas dhinaca amniga markaa usoo noqdo waxaa nasiib darro ah gurigii lagu magacaabayay muxuu ahaa Villa Soomaaliya inuu maanta noqday guri nin keliya leeyahay ninkii intaan codkooda ku yimid inuu awaamiir qaldan ka bixiyo uu yidhaahdo intaha ha la xiro motooraha la soo qaado hal alxaamo yuusan soo gelin nin muxuu ahaa mooshinkaas saxeexay nin guddoomiyaha u saxday yuusan soo gelin inay yidhaahaan aad baan uga xunaa
warnimayo sharciga waxaa loo dejiyey waxaa waa labada isbatin ku kala baxdo haddii la soo eediyey madaxweynaha xaq u leeyahay inuu isdifaaco inuu sharciga horta isku difaaco inuu abuse sameeyo oo sharciga ku tunto waxa lagu soo eediyey ay ka mid tahay inuu yani ku takrifalaayo sharciga uu yeelan lahaa inuu baabi'inayo ee lagu soo eediyey waxaana markhaati u ah waxaa ka dhacayo villa Soomaaliya waxa ka dhacaya markhaati u ah waa maragmadoonto nin kastana waa imaan karaa Soomaali ah oo arrimaha Soomaaliya danayda Soomaaliya wuu imaan karaa waa karaa heer waxaa la joogaa qofka bini'aadamka gudoomiye ninkii xubintii labaad oo dalka markii asaga ambishada laga keenay xilka la wareegi lahaa in la yiraahdo raashin looma geyn karo biyaha laga gooyo korontada laga gooyo ciidankiisa maxaa waxba yaan la siinin waa aad arrin u fool xun waa arrintaas waa dhaqan xun waa dhaqan gumaysi waa dhaqan dictatori waxaan leenahay laga digtoonaado wixii dhacay waa dhaceen hala dabta caanada daatay dabada la qabtaa caanaha waa daateen dabada la qabtaan leeyahay waxaan u aqalcinaynaa mas'uuliyiinta inay taas ay ka waaldawaan tan labaad waxaa nasiib darro ah oo aan rabaa halka inaan ka caddeeyo una tacsiyeynayaa xasuuqa hadda soo gaaray oo ka dhacay magaalada Baydhabo oo shacab ra'yigooda cabirayo ciidamo loo adeegsaday qaarna muxuu ah la dhaawacay qaarna dhaawacooda isbitaalka ku dhinteen arday la sheegayo hadday arrintaasi jirto waa arrin aad iyo aad nasiib darro ah waxayna khusaysaa dadkaas ra'yigooda ay si saliim u cabirayaan sharcigaan u qabo u banaynayo ninka si nabadgelyo inuu sharciga muxuu ahaa u cabiro ra'yigiisa sharciga halkaa waan u mudaaharaaya muxuu ahaa shacban mudaaharaada xildhibaanada caynaya wax inta qowlka ka mid tahay lama dilin lama cadaabin waayo kuwaas loo cadaadinaya ra'yigooda cabiraya maxaa loo cadaadinaya arrintaa ayada ah nin alla ninkii ka dambeeyey waxaa ballan nagu ah inaan maxkamad la imaan doono in maxkamad la soo saari doono shacab iskiis u banaan baxayo cid walba waxa ka sheego lama hoostaagi karo lama xasuuqi karo lama caburin karo waqti la iscaburinayo waa dhaafteen nin walba sharciga ka sareeyay shacabkii meeshaas wax ku noqdeen waa u tacsiyeynayaa waana muxuu ahaa aad baan uga xunnahay anigoo ku hadlaayo magaca xildhibaanada halkan fadhiyo ee Soomaaliyeed aad iyo aad baan intaas uga xunnahay uga soo horjeednaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa mas'uulka laga keenay impeachmentiga iyo ra'iisul wasaaraha iyo taliyaasha ciidamada ficilada guracan oo villa Soomaaliya lagu soo rogay ha laga daayo taa waa midii la soo dhaafay waa midii laga soo gudbay dalka meeshuu ka mid yahay loo celini hore aan u soconno aan xisaabtanno aan isxisaabino aan isqancinno nin walba wuxuu qabaa ninka kale halka ka dhageysto aad iyo aad baad mahadsantihiin shacabka Soomaaliyeed waxaan ka raali gelinaynaa dadka sida xun u fikirayo sharciga diidan keligood noolaashayaasha ah u baahan waxa ummadda ay lahayd in keligood meel dhigtaan waxyaalaha ay ku hadlayaan waa ka raali gelinaynaa ma la qabno waxaan qabnaa in la xisaabtamo waxaan qabnaa in wax la cuno waxaan qabnaa in wax la saxo waxaan qabnaa in hor loo socdo waxaan qabnaa dalka in nabadgelyadiisa iyo amnigiisa iyo horumarkiisa la gaarsiiyaan qabnaa ciddii diidan waa cidda diidan in lala xisaabtamo waa cidda diidan in sharciga ay ilaaliso kuwaasna waxaan leenahay allah naga qabto aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم marka hore ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa salaameynaa annagoo ah xildhibaanadii mooshinka soo jeediyay guddi ka mid ah waa laga hadlay ahaanshaha mooshinka iyo sharciga qodobadu ku tirsan yahay qaybaha kale oo aan rabaan taabto waxay tahay horta hadda sida aad arkaysaan annagoo xildhibaano ayaa saxaafadii isku bedelnay annaga kaamirooyinkeena duubayna saxaafadii xooga meesha kusoo gelinay waa la diiday annagaana la garaacay gacan loo qaaday meesha lagu sameynayna waa villa Hargeysa waa meeshii golaha shacabka ay lahaayeen qodobka 18aad ee dastuurkan aan ku dhaqanno ee madaxweynaha hadda xilka haya aan ku siinay kursiga wuxuu sheegayaa si buuxda xurriyatul qowlka qofka iska dhaafe hadda immunity-da la xildhibaanka ah ee qofka shakhsiga caadiga ordinary-ga ah in uu si buuxda u leeyahay aragtidiisa inuu jeediyo aan loo iqaabi karin hadda waxa muuqata waxa ugu horeeya oo ugu liita ah in aragtidii xildhibaanada iska dhaaf qofkii kale shacabka ah aragtidii xildhibaanada la diidan yahay villa Hargeysa xoog ku soo galnay mana ahan wax dastuurkan ku yaala mana ahan dimuqraadiyadda aan ku dhaqmayno horta madaxda qaranka waxaan uga digaynaa
buuggan inay ka dhex baxaan iyo kitaabkii qur-aanka ay kusoo dhaarteen in waxa buuggan ku yaalla ay ku dhaqmi doonaan haddii buuggan laga dhex baxo waa ognahay xalano dhexdeeda madaxweynaha qaranka xasan sheekh oo madaxweyne ahaa ayaa ku wareejiyey xilka qori aka loogama qaadin buuggan ayaana xukumaya aan iskaga qaadnay kaas haddii lagu kalsoonaan waayo oo amaro la soo saaro awaamirka la isdul dhigo waxaa ka imaanaysa cawaaqib xumo mideeda kale xogeyihii guud ee baarlamanka waa shaqaale civil servant ah xildhibaana mooshin soo qoray xogeeye guud gudoomiye u amray oo faylkii geli layiri oo faylkii geliyey isaga faylkii intuu geliyey koobigiisa noo soo celiyey maalmo ka hor ay ahayd hadda saaka xildhibaano kale oo annaga nala mid ah oo inay amraan oo laleeyahay waraaqo la soo daawacay ahaanshaheedana aanan garan karin lagu sheego mooshinkii baa buray wakaaladii wararka ee qaranka canshuurtii ummadda soomaaliyeed laga soo qaaday loo isticmaalay fariimo in lagu soo diro ummaddii soomaaliyeed lagu maran habaabiyo oo laleeyahay mooshinkii baa buray golihii wasiirada hadda isku bedeleen mooshin burid iyo qabashadiisa hadda ay faafiyaan maran habaabinta intaas la eg ummadda soomaaliyeed ma mudna in dhaqan lacagtoodii saas loo isticmaalo gobolka banaadir gaar ahaan canshuurtii laga soo qaaday oo aan ognahay dhibaatada dadka ay ku sugan yihiin in loo isticmaalo maanta xildhibaanadii ay soo doorteen in madaxtooyada loo diiday ay soo galaan golihii shacabka ay soo dhex galaan ciidamadoodii oo annaga carruurteenii ahay naloo adeejiyo nala ka adeejiyo annaga aan askartii annaga isku wareerno aan gacan inaan iskula tagno nala gaarsiiyo sharciga maaha aan xurmayno sharciga madaxweynaha impeachmentia laga keenay waa in u hoggaansamo dastuurka waa inuu aanan ku meeraysan derbiyada sideeda ma aha baasha in lagu warwareejiyo habar dhali ways aleen ku waalatay maaha saxdaa laga aado sharci buu leeyahay mooshinaan kaa keena madaxweyne waa ku soo dacweynay su-aalaan ka qabnaa si sharaf leh xurmad leh oo garbax waxaa laga yaabaa inaad naga garheshid meesha hoolkaan isugu nimaadno su-aasha lagu weydiinaya waa sahlantahay jawaab bay leedahay ma lahan laakiin qori aka in laisku maqooniyo ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa aragtidooda ay qabaan inaanay ka xishoon ayna ka cabsan gaar ahaan gobolka banaadir in ay si dhaqsi ah uga dhiidhiyaan ayna muujiyaan lacagtoodii qaabka loo isticmaalay inayna ogoleen marka waan u sheegaynaa odayaasha dhaqanka mas-uuliyad kaloo gaaraha ka saaran bulshada siyaasiyiinta hadday isqabsato odayaasha dhaqanka waa marjaca loo laabto waa in ay sida dhabtaa u hadlaan ummaddana u sheegaan madaxda qaranku hadday qaldan tahay waa qaldan tahay xayndaabka dastuurka lagu soo doortayna kama dhex bixi karaan hadday ka dhex baxaan malaa'iga ma ahan waa laga qabanaya marka waana mahadsantihiin dhammaan ummadda soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم مقعي واحد لبان قولي عدر سيجي أنا مذا حلبان الموشي تاني مذا حوالي فرماتشو وهذا النوع يديسن إلا أنت سفد دستوري وموشين كاسي كمال مريو أنا والله بقى رموضو مرة شعب الصوماليين أنا حقا وقت شوابه مد لما كان قدامي بحيجانا ده قولها نجوه قامية ورنت يعني الشرف يحترم وينه هينو حدي وحي شلي يقدر على تيفيد مريان دي بقول نقول ويان وحالي قلنا كبحين ويان أنا ولا احترامين قدومي بحيك وحلبان هدي قدوميها أود شوغو وحي وقدره أي فرم ويان أنا ولا احترامين وقدومي بحين نوهان مايا أنا تاسن شن وحي شرف كله ينتي قدومك واحتراميان هدي قدومي محل مرسكه ورمادان أنا ولا قدومي كحيان وحلا لا وير من أهانا مايا نقولها قف كستابع حد سمن بوكيمد كرسي سنة والبابا مال بوكليمد وحلوه شوغو وشرعي ناس دستور يحراسات من قوة شغنا لكن قدومي كحيانو لخلدي oo hor u baahan u timaatay loo nasteexeeyo oo golahoogi la rabay burburiyaan baan rabaa maanta dadweynaha aan u sheego war ka daaya war golihiina ka daaya war golahan waa golihii idinka oo sharaf leh oo gudoomiye ku xigeenaya sharaf leh oo xildhibaana ah oo xasaanad leh ayaa shakhsiyaad suuqa ka madax ka dhigteen kuwii shalay aad keenteen oo hanuunsaminaya golahan intiisa kale weyn ay idinla joogto oo hoggaansama annaga gudoonida ka dhiganay nala shaqeeyo gudoomiyihiina ixtiraama talabaad waxay rayo caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed ku maran habaabinayaan waxa la maxkamad dastuuriya madaxweyne farmaajo anagu waanu dooranay horteeda lagu dhaariyay xilka loogu wareejiyay maxkamad dastuuriya oo la mariyay habeerta ma jirto shacabka Soomaaliyeed yaan la khaldin maxkamad dastuuriya oo ma dhisna golaha garsoorreyn oo ma dhisna xukuumadda iyo fulinta joogtaana mar walba la dagaalan iyaga la dagaalamay hadda may siideen xubnihii mid noqon lahaa golaha adeega garsoorka
sidaas daraaddeed bacdamaan madaxweynaha marka hore maxkamadda dastuuriga dhaarin bartii aanu ku siinay codkumaanu kaga qaadanay hadduu xubno ku filan haystana miidaanka ha yimaado sanduuqa ha aamino haddii kalena qoli caaradii kuwii ka horreeyay way ka qaxeen yaan xamar ha ka qaxin baan ku leeyahay madaxweyne anu waxaan ku leeyahay waxaa kuu fiican wanaagga soomaali nabad bay ku wada joogi kartaa nabadda qaado sanduuqii lagaa doortay ogolow haddaanad ogolaana cawaaqib xumadeeda haddaanu kuusii sheegna anagu had shacabkana mid baan u sheegaya shacabka soomaalidu waa dad sharaf dhaqankii kacaanka ahaa guulwadayaasha iska daaya dadka degmooyinka inta laga soo ururiyo yaan bacadkaa lagu dilin magaalada qof kastooba qofaa kugu matala golaha dadkaaga warayso golaha wax lagu dhexayo ogow yaanay dadka soomaaliyeed noqon dad si fudud loo karaamadooda loo rido shalay dad aad u tiro yaroo waddooyinka marayaan arkayay waa wax aan aad uga xumahay annagaa golayaasheedii ku matalanana aamina annagu waxaan idinku dhaqanaa waa dastuurkaas madaxweynuhu waa baalmaray dalkeennii xabashi buu siinayaa shisheeye buu siinayaa waxaanu rabnay inaanu ogaanno wax kastuu gelay waa waxaad anaga noo doorateen intaasaan u sheegaya shacabka soomaaliyeed waan idin salaamaya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا أمة الصومالية وحن سلام يا ضمان أمة الصومالية ملك استيجوب تقدم منها جارهان أمة الصومالية وكل الوطن كالصومالية وحاميش ما سوق النمط أوكي وجابيها ومالينا وحن ما أنت سيدا وقتها waxaan maanta meeshaan isugu nimid oo villa Hargeysa ah howlka weyn xildhibaano ka soo jeedo golaha shacabka xildhibaanadaasoo xalay ilaa iyo maanta u taagnaa arrinta dhibaatada soo korodhay oo ah gudoomiyihii oo dhaqdhaqaaqiisa la xadiday oo is arki weynay gudoomiyaha golaha shacabka oo gurigiisii hadda u eg nin ku xaniban meesha oo ah sideedaba u ekayana dhihine arrintaas wax la qaadan kara ma aha ummadda Soomaaliyeed waxay fiirsanayaan waxyaabaha hadda ay u jeedaan aadan uga xunnahay wadankii oo hadda sii galaayo mugdi madow loo wado oo meel xun loo wado taasna ma fiirsan karno waxaan u adkaysan weynay in arrintan lagu wado wadanka ayaan u qaadan weynay golahii shacabka oo la afduubay oo in la iska xirtay xildhibaanadii in meel lagu kala ooto oo hoteelada inta loogu yeero hadda waxay maraysaa in guri loogu yeero oo meel lagu aruuriyo oo qaarkood lacag la siiyay qaarkood jaga iyo wixii loo ballan qaaday ma naqaan jagada xagee ka helaysaa xildhibaanow hadii golaha shacabka la xiray golahaasaad ku tahay xildhibaan hadii golaha shacabka la xiray lagama xirin dadkan hadlaayo xildhibaanadan soo istaagay oo u hadlaayo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku soo wajahan iyo dhibaatada golaha shacabka loola damacsan yahay oo la leeyahay la yiri shaqadaba ma soconayso waliba warka ka dambeeyo soo baxay waa ka sii foolxun yahay waana wali ma akhrinin warqadiisa ka soo baxday la sheegayo waxa la leeyahay in wax dhaqaaqay wax shaqeynaayo malaha iyo maaliyad iyo wixii wax kasta laga hadlay marka waxaan aad iyo aad uga xunnahay waxaan dhacaayo wax loo dul qaadan karana ma aha mooshinkan la keenayna madaxweynaha waxba yuusan ka cabsanin marna albaabada yuusan xiranin anaga xalayto albaabkaas inta naloo diiday darbiyaashan ka talaabsanay oo xalay oo dhan magaalada dhan isdhex maraysay anaga gudoomiyahana waa u tagaynaa waana is arkaynaa meel kastana waa tagaynaa gudoomiyahana waa xor waaye ma xirno qof xiri karana malaha haddii wax la xiraayo waa la ogyahay qofka la xiri karo gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu yahay madaxweynaha ku xigeenkiisi waaye waa ninkii labaad ee kursiga madaxweynaha hadda mooshinka laga keenay booskiisa waxa fadhiya amaamiirta bixin lahaa waa gudoomiyaha marka sheekada waxay isu bedeshay dictatorna wadanka mar hore ka soo baxay dictator loo noqon karo Soomaalina u noqon mayso laakiin dhibaatada soo socoto aan ka walwalsanahay oo inteena meesha isugu qayna keentay haddii Soomaaliya sidan hadda lagu wado waxay noqonaysaa in loo noqdo gadaal because nin walba wuxuu ka soo jeedaa reer Soomaali waxay ku heshiisay 4.5 hadalla horaa jiray oo la yiri 4.5 inaan baabi'iyaan rabaa hal nin ma baabi'in karo madaxweynuhu haddaad aaminsan tahay 4.5 ma baabi'in kartid adigu kursiga aad ku fadhid beel baad ugu fadhidaa maxamed mursalna gudoomiyaha baarlamaanka beel buu ugu fadhiyaa ra'iisul wasaaraha beel buu ugu fadhiyaa gudoomiyaha aqalka sare beel buu ugu fadhiyaa qof kasto
beel buu matalayaa annaga kuraasta aan ku fadhino beelaa matalaynaa mana qaadanayno in guddoomiyihii la yiraahdo mana soo bixi karo mana loo tegi karo gudoomiyaha adigu ma xalibi kartid waxaad samaysanaa adigu mashaakil aad qoorta gashanaysid oo adigu kugu soo qool leh waay adduun weynahana waa laga fiirsanayaa international community way ku og yihiin wadankan Soomaali way tashanaysay Soomaali way isfahantay Soomaali way isu timid hadda dhibaato kama taagno laakiin waxaad gadaal ugu celinaysaa in belbel la isu dagaalo oo hadda nin walba waxa tiri xalayto ciidamo intay oo labisan intay hor istaagaan ayna dhahaan ma gali kartiin amar baa nala siiyay yaa idin siiyaan dhahnay waxay yiraahdeen madaxweynaha amarka soo baxay madaxweyne markaad xildhibaanada amarkaaga oo qori aad nagu soo taagtay oo aad amar ku bixiso askari hal garaaco aad tiraahdo askari xildhibaan garaacay markuu yimaado saad ku fadhinaysaa meesha ma fadhin kartaa ma fadhin kartid waxaa kaa qaldamay annagaa ku soo dooranay kursiga annagaa kugu fadhiisaday haddii aad tiraahdidna xildhibaan ha la garaaco adiguna meesha ma fadhinaysid taas ogow gurigaagay kugu imaanay xildhibaanka ninkii garaacay adoo gurigaa kugu soo galaa kugu garaaca berri adoo qaxayaan lagu arkin waa la wada qaxi doonaa hadday saan ku socoto madaxweyne gadaal ha noo naqin 30 sano ayaa la soo rafaaday Soomaaliya waa isku dhibtootay way heshiisay hor waxa loo baxay oo qurux iyo xurnimo loo baxay Soomaali way tashatay gacan shisheeye ha nagu celinin hadda waxay sheekadu taagan tahay inuu shisheeyna soo kala dhex galo Soomaali waa isxalin la adahay Soomaaliana arintaas u sabab ah madaxweyne markii muran yar dhaco albaabkaada hadaad xiratay madaxweyne waa ku arki weynay xildhibaanada iridaad ka xiratay intaa hoo jeeraan ballan soo qabsaday waan gali waayay iridaad boqol jeer hadda wax laga qabo malaha waxaan ka rabno malaha golaheena shacabka faraha nooga qaad adigu meesha laga wacay mooshinka ka soo jawaab imaamesh gudoomiyahan aad xanibtayna waa inaad ka qaadaa taakadaas albaabkaas aad furtaa hadaad albaabkaas bila hargeysa bila Soomaaliya aan dhahay furweysa baabuur jidkan laga soo dajiyay waxaan soo lugaynay nus kilomitir ku dhawaad haddii aad taas aad wax ka bedeli weysa albaabkan aad xirtay aad furi weysidna madaxweyne wixii ka yimaado adaa ka mas'uul ah annaga Soomaali intaan waa la tashanaya Soomaali way tashanaysaa intaasaan uga baxay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.